بسم الله kusoo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijka xasuus qaybtan waxaan ku soo qaadan doonaa ama ku xasuusan doonaa xilligii Mareykanku yiri muddo 5 sano gudaheeda waxaan ku qabsan doonaa 7 wadan oo muslimiin ah oo ay ku jirto Soomaaliya generaal shaqada ka fariistay oo Mareykan ah magaciisana la yiraahdo Wesley Clark ahna nin ka soo shaqo galay wadamo tiro badan oo ay ka mid yihiin Kosovo, Vietnam, wadamada Khaliijka isla markaana taliye sare ka ahayn ciidamada NATO ee Yurub ayaa 2003 xilli uu doonayay inuu soo sharaxo madaxweynenimada Mareykanka buu qoray buugaas oo uu magac daray dagaalada casriga ah sidoo kale xilligaas waxa uu dhiibay ama bixiyay waraysiyo aad u fara badan ninkan ayaa waraysiyada iyo buugaba ku sheegay arrin dad badan ay u haysteen inay been tahay laakiin dib laga ogaaday in arrin run ah ahayd ninkaas ayaa waraysiyadiisa ku sheegay inuu Mareykanku qorsheynayo inuu qabsado 7 wadan oo muslimiin ah muddo 5 sano gudahooda ninkaas oo ku soo dhex jiray 34 sano ciidamada militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay sheeko dhex martay asaga iyo taliye sare oo uusan magacaabin oo ka tirsan Pentagon-ka kaas oo uu sheegay inuu tusay qorshe cad oo lagu weerarayo 7 wadan oo muslimiin ah muddo 5 sano gudahooda xilliga ay sheekadu dhex martay ayaa ah 2001 kadib markii Afghanistan la weeraray laakiin la qorsheeyay in la weeraro Ciraaq wadamadaas ayuu ku sheegay in ay ka bilaaban doonaan Ciraaq laga xidhi doono Suuriya kadib Lubnaan Liibiya Soomaaliya Suudaan kadibna lagu soo afjari doono Iiraan haddaba waxaan fiirinaynaa balaankaas maxaa ka fulay dad badan been ayay u haysteen waqtigaas iyo waxyaabo doorasho lagu gelayo olole doorasho laakiin kadib maxaa dhacay Ciraaq ayaa ugu soo horeysay oo la weeraray sanadkii 2003 waxa ka dhacayna waxaan u maleynayaa in cid kasta ka dirigsan tahay Suuriya ayadana waa ognahay sida ay ku bilaabatay dagaaladeeda iyo meesha ay ku dambeysay iyo ceerka ay gaartay Lubnaan waxa weerar ku qaaday Israa'iil waa ogeyn sida la sheegana Iiraan ayaa badbaadisay kadibna waxaa lala galay dagaal xagga dhaqaalaha ah waana ognahay maanta Lubnaan meesha ay marayso Liibiya sidoo kale cidna looga sheekeymayo waxyaabihii dhacay iyo sidii loo dilay Muammar Gaddafi iyo cidii dashay Soomaaliya ayaa ku xigtay Soomaaliyana waa xusuusanaa waxyaabihii ka dhacay ciidamadii Itoobiyaanka dagaaladii dhacay argagixisada dirirkii iyo weliba Amisom oo ilaa ay hadda wadanka haysa bal Suudaan ka waran ayada Suudaan waa ognahay inay hadda ka socoto dagaalka hadda ka socdo marka waxaan dhihi karnaa liiskan waxaa ugu dambeeya Iiraan waa aan weli la gelin sidoo kale waxaa xusid mudan in liiskan ay ka maqan tahay Yaman laga yaabay inaysan balaankii hore ku jirin laakiin dib looga soo daray Yamanna waa ognahay iyadana meesha la marsiiyey haddaba su-aasha meesha taalla ayaa waxa ay tahay digniinahaas maxaanan tusaale uga qaadan digniinahaas iyo kuwa lamid ah ayaan maqalnaa maalin kasta wadamada deriska ka maqalnaa dad badan ka maqalnaa laakiin dhibtada looma siiyo waxaa laga soo qaadaa waxyaabaha aan dhici karin oo kaftan caawna laakiin waa inaan mar kasta xasuusanaa in la yidhi cadaawadda ayaa afkooda ka muuqata laakiin qalbigooda wax ku jira ayaa ka sii weyn waxaan rajaynayaa in waxyaabaha noocaasa aanan fududaysan oo aan ka digtoogaan